waan islaamay walaalayaal waana idin soo dhaweynayaa waxaan ilaahay ka baryayaa inaad dhammaantiin idinka iyo reerihiinuba aad nabad qabtaan magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Ducaale Soomaali badan oo muslimiina ayaa nala soo xiriira marka ay casharadayada ama barnaamijyadayada ka daawadaan ka dhageystaan ka akhristaan TV-ga ama baraha bulshada ama internetka kuwa aflagaadada habaarka عيدا يبدرها كله نوصو قرا أما نوصو دوبا وقت إسكجمله منه لكن سواء حشرة هو كله أو سي إلبله أو دجن نوصو وديا سؤاله عقل الجلا أما نلاقي بسبب فكرة عقل الجلا كواس وانو جوان سنة إن أنو سيتشوكتا وجواب علينو sidaa daraaddeed ayaanu isku daynaa inaanu barnaamijyadeeda kala duwan waqtiyada qaarkood siino ama u qaybino inaanu su'aalaha qaarkood kaga jawaabno maanta waxaanu kaga jawaabaynaa barnaamijkan su'aal soo noqnoqoto oo muhiim ah oo nala soo weydiiyo iyo dhowr su'aalood oo taa la xiriira su'aashaas oo ah masiixiintu ma saddex ilaah bay aaminsan yihiin haddii aad muslim tahay oo laga dhaadhiciyay ama lagu baray ama aad ku fikirayso in ay masiixiyiintu saddex ilaah aaminsan yihiin taasi waxaan kuu sheegayaa maanta inay tahay fikrad khalada taas oo sida ay adiga kuula tahay bidcinimo ama haddii aan afxumada Soomaalida aan isticmaalno sida ay adiga kuula tahay gaalnimo ayay masiixiyiintana ula tahay bidcinimo iyo dambi laga gelayo Ilaahay masiixiyiintu waxay aaminsan yihiin inuu jiro ilaah kaliya kitaabka quduuska ama Bible-ka kitaabka Tawreedii buugga Baxrintii cutubka 20aad aayadda 3aad wuxuu Ilaahay nagu amrayaa isaga oo oranaya sidan aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaadan lahaan markii Ciise Masiix la weydiiyay oo ay dadkii weydiiyeen waa maxay qaynuunka ugu muhiimsan ee soo koobaya diinta oo dhan Ciise Masiix wuxuu ugu jawaabay sidan oo injiilka ku qoran Rabbiga Ilaaheenaahu waa Rabbi kaliya waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xoogaaga oo dhan sidaas oo tahay haddana Bible-ku wuxuu ina barayaa inkastoo Ilaahay jiritaankiisu mid yahay haddana uu isugu keen muujiyay saddex siyaalood ama saddex shakhsiyadood kuwaas oo kala aabaha Ilaahay wiilka iyo ruuxa quduuska kuwaasoo midkood kasta uu sidiisa u leeyahay awoodii ilaahnimada oo buuxda ama sifooyinkii ilaahnimada oo buuxa Ciise Masiix markii uu samada tagayay ee uu xertiisa ka tagayay ee uu ku amrayay inay injiilka gaarsiiyaan adduunka wuxuu iyaga faray oo uu ku yiri haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska waa saddexda shakhsiyadood ama siyood ee Ilaahay isku keentusay walaalayaal Ilaahay ma aha saddex ilaah ma aha laakiinse waa mid saddex siyood isugu keen muujiyay oo u shaqeeya inkastoo ay bini aadanka ku adag tahay inaynu fahanno ilaah leh saddex midnimo haddana waa inaynu aaminaa muujinta Ilaahay ama ereyga Ilaahay iyo waxa uu Ilaahay isaga keen sheegay innaga inay run yihiin oo aynu sidooda ku qaadanaa run ahaantiina ilaah waxa uu yahay oo dhan iyo sida uu u shaqeeyo oo dhan aynu qalbiyadeena ku fahmi karno ilaah ma noqonayo Bible-ku meelo badan buu kaga hadlayaa sida uu Ilaahay u weyn yahay ee uga weyn yahay maskaxda bini aadanka kitaabka Nabi Ayub cutubka 36aad aayadda 26aad waxa ku qoran bal eeg ilaah waa weyn yahay oo annana isaga ma aanu naqaan oo cimrigiisu intuu leeyahayna lama baari karo yani ilaahay waxaynu ka naqaanaa waa yartahay inta ilaahay
uuna noo sheegin ee isaga ku saabsan ama inta uu noo sheegay xataa aynu fahmi karin ee ay tahay inaynu rumaysi ahaan ku qaadanno ayaa ka badan inta aynu fahmi karno ahdiga cusub haddaynu fiirino kitaabka Rooma cutubka 11 aayadaha 33 ilaa 34 waxaa ku qoran mool dheera hodantinimada iyo xigmadda iyo aqoonta Ilaah xukuumadiisa lama baari karo jidadkiisana lama raadin karo waayo bal yaa ogaaday maanka rabbiga bal yaase la taliyihiisii noqday ayaa ereyga Ilaahay noo sheegaya marka walaalayaal Ilaahay laftiisa iyo shuquuladiisa oo dhan ma ogaan karno maskaxdeenu ma qaadi karto isagu wuxuu inoo muujiyay inta aynu awoodno inaynu fahanno iyo inta aynu awoodno inaynu jiritaankiisa ku garanno iyo inta aynu awoodno inaynu qaynuunadiisa ku xijino oo aynu isaga sida uu rabo ugu caabudno kitaabka Towreedda buugga la yiraahdo sharciga ku noqoshadiisa cutubka 29aad aayadda 29aad ayaa waxay oranaysaa waxyaalaha qarsoon waxa iska leh rabbiga ilaahayna laakiinse waxyaalaha la muujiyay waxa iska leh inaga iyo caruurteena waligeenba inaan sharcigan erayadiisa oo dhan yeelo ama dhowrno waa markii reer binu Israa'iil qaynuunada uu Ilaahay Muuse ugu soo dhiibay uu siinayay waxyaalaha qarsoon ee aan la fahmi karin ee mystery-ga Ilaahay baa iska leh laakiinse wixii uu noo muujiyay iyo amaradii uu noo muujiyay waa in wuxuu inaga ayuu xil inaga saaran yahay inkastoo Ilaahay ay ka yimaadeen inaga ayaa mas'uuliyad leh inaynu kuwaas dhowrno oo yeelno oo ku dhaqanno sidaa daraadeed ayaan u aaminsanahay inuu Ilaahay isaga oo aan kelinimadiisa iyo midnimadiisa burin uu haddana isugu keen muujiyay saddex shakhsiyadood oo kala ah Ilaaha Aabaha wiilka iyo ruuxa quduuska waa qarsoodiga Ilaahay waa mucjisada Ilaahay waa awoodda Ilaahay